Denmark, Greece, Pakistan, Panama, and Somalia are elected members of the Security Council for a 2-year term beginning on the 1st of January 2025. Soomaaliya ayaa sanadkan cusub ee 2025 mar labaad ku guuleysatay in ay salka la hesho 54 sano kadib kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee xubnaha aan joogtada ahayn. waxayna Soomaaliya kursigan ku matali doontaa guud ahaan qaaradda Afrika waana markii labaad oo ay ku guuleysato. madaxweynaha Soomaaliya oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri: waxaan maanta idin la wadaagayaa farxad weyn oo taariikhi ah kadib markii 54 sano kadib Soomaaliya ay ku biirtay golaha qaramada midoobay ee amniga UN Security Council ka loo yaqaano. 54 sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonay, maanta ayaan mar kale xubin ka noqonay. Soomaaliya ayaa 2 sano ee soo socota kursigan ku matali doonto guud ahaan qaaradda Afrika, wadamada Islaamka iyo kuwa Carabta. waxa ayna cod dheer oo meesha u jooga u noqon doontaa kuwa ku dulman adduunyada qaybaheeda kala duwan sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. cid kasta oo caalamka joogta ee tirsanaysa inay dulman tahay ayaan saari doonaa inaan garab istaagno, codkeennana aan maxaanku ugu heelino, qadiyadoodana aan fagaaraha aan dhex geyno kana hadalno. It is my pleasure to announce that on the 1st of January 2025, Romania and Bulgaria will finally become part of the Schengen family. wadamada Romania iyo Bulgaria ayaa sugitaan badan oo sanado qaada kadib waxa ay si rasmi ah ugu soo biireen ogana mid noqdeen bahweynta Schengen ee wadamada Yurub. waxayna arrintan si rasmi ah u hirgashay 1 bishii January ee sanadkan cusub aynu maalmaha ka qabno ee 2025. wadamadan oo dadkoodu tiro ahaan marka la isku daro gaarayaan ilaa 25 milyan oo qof ayaa ku soo biiraya midowga Yurub ee wadamada la isku yiraahdo ee Schengen, waxayna ku noqon doonaan 29 wadan halkii markii hore ay ka ahaayeen 27 wadan. maxkamadda magaalada Trondheim ee dalka Norway ayaa qaaday kiis dacwadeed la yaab iyo amaka ku noqday dadweynaha ku nool magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Norway. arrintan ayaa timid kadib markii hooyo ku nool magaaladaas ay maxkamadda ka furatay 2 gal dacwadood ka oo midka koowaad ay ku eedeynayso dawladda Norway oo ku fududaatay sida ay sheegtay in ay furiinkeeda ansixiso iyada oo aanan hubsan. midka labaad ayay caruurteeda oo 8 jir iyo 14 jir kale ku eedeynaysay inaysan xaq u lahayn in ay kaligood dhaxlaan aabahooda geeriyooday. haweeneydan oo toddobaadyo ka hor dalbatay furiinka oo ay maxkamadda u ansixisay ayuu ninkeeda geeriyooday 2 toddobaad kadib marka furiinkooda la ansixiyay. waxaana argagax iyo amaka ku noqday in hantida faraha badan ee uu ka tagay ninkeeda geeriyooday uu dhaxlayaan caruurteeda oo kaliya oo aysan iyadu waxba ku yeelanaynin. waxayna ku andacoonaysay in ninkeeda uu si qaldan u isticmaalay ID-geeda isaguna uu dalbay furiinka oo aysan iyadu furiinku raali ka ahayn oo aysan dalban. arrintan oo ay maxkamaddu baaritaan ku samaysay ayay guntii waxa ay xukuntay in haweeneyda ay la imaawaysa cadeymo ku filan oo sheegaya in ninkeedu dalbay furiinka. waxayna sheegtay in furiinkaasi uu ansax ahaa, hantidana aysan waxba ku yeelan doonin ee ay caruurteeda dhaxlayaan guud ahaan waxa uu ka tegay ninkeedii hore ee geeriyooday ee iyada furay. maxkamadda ayaa sidoo kale u xil saaray cid mas'uul ka noqoto ka oo ilaali doonta xuquuqda ciyaalka, waxayna u qabatay qareen ka oo isaguna mas'uuliyadiisa tahay in hantidan faraha badan ee caruurtu ay dhaxleen uu uga ilaaliyo haweeneydan damaca uu uga jiro ee hooyadood ah. dadka reer Suuriya ayuu sanadka cusub ee 2025 ugu curtay iyaga oo u dabaaldegaya xorriyad buuxda oo ay ka heleen nidaamkii wiilka iyo aabihii ee soo taxnaa 54 sano ee la soo dhaafay ka oo ay ku sheegeen in uu ahaa nidaam diktator ah oo dhibaatooyin badan ku haya shacabka. arrintan ayaa timid kadib markii jabhadihii dagaalamaya muddadii 14 sano ahayd ee la soo dhaafay ay gudaha u galeen magaalada Dimashq ee caasimadda waddankaasi Syria. wuxuuna madaxweynihii Xaafid al-Asad uu dhalay ee Bashar al-Asad oo muddada dagaalka ay kula jireen uu u qaxay dalka Ruushka ee ay saaxiibada yihiin. waxayna reer Suuriya ku waabariisteen sanadkan oo uu ugu dhashay iyaga oo xur ka ah nidaam soo tixnaa 54 sano.
sanadka cusub ee 2025 oo aan kaga jirno toddobaadkii koowaad ayay dunida la daalaadhacaysaa cimilo xumo aad u baahsan wuxuuna dhulgariir iyo fulkaano ka dhacay dalka Itoobiya si taalamida wadamo badan oo Yurub iyo Ameerika ah ayaa la daalaadhacaya baraf xoogan oo ka da'aya oo wata dabaylo aad u baahsan wuxuuna barafkaani sababay in ay xayirmaan isu socodka gaadiidka dhulka iyo cirka si taalamidana magaalooyinka California iyo Los Angeles ayaa gubanaya waxaana dab xoogan u ka kacay magaalooyinkaas ka oo baabi'iyay guryo aad u fara badan ilaa iyo haddana awoodda Mareykanka ay isugu geeyeen waa ay kari la'yihiin in ay damiyaan dabkaas oo ay xal u helaan